jigjiga dad waxa ka jira هاي تجسيد حق جرورت tii ugu daray هاي جigjiga tii ugu daray واساسي waaya جigjiga سينان تجين بي jigjiga waxa ka jira ها dadka oo laga qabanayo ها oo la xirayo واسقط قبنايا ها هاي dadkaas maxay sameeyeen ها dhawaan ها. ayaa madaxweynaha kilalka shanaad ها ama DDSI DDSI Cabdi Maxamed Cumar محمد محمد عمر ها waxa uu sameeyay suldaan hore u jiray oo la yiraahdo suldaan bede سودان bede بدل اي bede nin la yiraahdo هو مترينيا ma suldaan jiray buu ahaa سودان تلو ها reer buu suldaan yahay هي beesha la yiraahdo abiskuul ابسكنك ها ayuu wuxuu ku yiri ها waan ka qaaday bede dabeetana suldaan cusub ها ayaan sameeyay ها oo la yiraahdo ها qalinle قليل لك وجه وزير به هي marka suldaan bede nin soo jireena سوتشير بوها saldadiisa ayaa هي oo dadku daawad ogyihiin وها صحيح fargelinta madaxweynuhu ku sameeyay dhinaca dhaqanka دقنك ayaa keentay in khilaaf weyn وكريمه uu soo kala dhex galo هي su'aasha waxa weeye suldaan bede Ha. maxaa looga qaaday uu uga qaaday suldaanimadiisa وهي nin walaalkiisa ها oo halkan jooga maraykanka jooga حضر وجوغا ayaa dawladda dhaleeceeyay ايوه دولته marka wuxuu dilay jigjiga dawladda jigjiga هي iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ها بودا maxaa walaalka ها uu anaga wax nooga sheegay saldanadaada waa ka qaaday war aniga walaalkay waa kala duwanahay dee ana mid dhaqan baan wadaa هي isna tiisa siyaasadu buu wataa waa fikir isaga uu qabo marka problemka haysta dawladda DDSI waxa دي اس اي ها sometimes ها wiil yaroo 20 jira لما تجري ama 18 jira انا سيدي تجري ayaa hadlayo oranaya cadaalad darra ka jirta halka كذا dabeetana hooyadii ama aabihii Ha. oo 8 jira وميسك فدي oo jijooga Ha. ayaa gudaha dhigay صوره Ha. مي بوليس لو waxaa leeyahay ها ilaa wiilkii aad dhashay uu naamaano dib loo soo amaano jeelkaasi deemay marka waalidku waxay ku khasban yihiin ها wiilkooda ay la hadlaanayaan ها warba madaxweynaha soo amaan aad u soo amaan dabeetana uu yiraahdo Ha. ceelal fara badan buu sameeyey madaxweynuhu ها dadkii waaweynaa indhuhu u jeexay عنده جحي cusbitaalo badan buu sameeyey راسم بوبي horumar baa jira intaa markuu yiraahdo Ha. ayaa odaygii saantii Ha. la sii deynaya رقص waa nidaam loo isticmaalayo in dadka lagu bahdelo oo la toojareeyo oo ku salle ها gumaysigii Ethiopia توبيو كلو صار ها marka gumaystaha wixii laga dhaxlay ها ayaa lagu dhaqaa جيجيا jigjiga بالضبط أن يلا مركز كاله marka هي waa Soomaalidii oo isgumaysanaysa بالضبط maaha Ethiopia oo Soomaali gumaysanaysa maaha ها waa Soomaalidii Ha. oo iyadu isgumaysanaysa هي dawladda Suudaanka cusbaa ها ninkii uu ku sheegay Ha. Mr. Qalinle مسخني ها ayuu caleema saaray أنا كشوي aan ku هي dhalinyaro joogta qabri bayax Ha. oo Suudaankii hore u matalayay ها ayaa arinta aad uga cadhootay هذا من عصبة لسه Suudaankii kalena wuxuu tegay Ha. rasmiga ahaa ها Ethiopia إثيوبيا waa Addis Ababa أرسلوا عاصمة إثيوبيا. عاصمة الأحفارس ayaan u jeedaa هي ayuu tegay Addis Ababa هي dadna halkaas uu ka dhaleeceeyaa dawladii وقال قصة قصة dadna ugu soo tegay waayo waa xiraya isaga الصداق وصو قصة هي dad gaariya 200 oo qof ها Suudaanka horta markii la doortay ها isaga dadka xidhi badankooda شيل بكو markuu soo kacay buu yidhi dad badan oo dhalinyaro soo jeeday qabri bayax oo soo xiray شيل كان لو قصة شو jeelkii baa la soo bixiyay هي وين بحسيتي waxa la xidhay iyagana ها 40 qof ها oo iyaguna ka tirsan beesha Bartire برتري عادي سو فعله marka 40 ka waxa lagu eedeeyay ها hotel ay ku ballameen ها inay ku shiraan hotelka lagu soo galay hotelka waa ballanta ahayd Ha. hotelkaas uu yimaadaan shirku qabsadaan واساسي suuqa laga soo qabtay ninka hotelka ahaa ها hotelkii waa laga wareegay منك اسكال هذا waxa lagu qaaday xeerka ah ها waxa lagu qaban lahaa shir shirka lagu qaban lahaa lagu qaban lahaa marka hotelka loo jelo waaweyn oo la seexdo ها oo dad shicib lahaayeen ها ayaa lala wareegay waqdoodu waa dhigtay nin aad walaatihiin Ha. ama aad kicitihiin ها oo Mareykanka jooga بس هذا ayaa soo hadlay oo dawladda dhaleeceeyay بالضبط أنا يلا faraha ما hotelkan idaarka bax سعود قدامك حرين في بالله Ethiopia ra'iisul wasaare Ahmed Abiy wuxuu doonayaa ها in uu isbedel ku sameeyo ها oo maxaabiistii hore ee siyaasadda u xidhnayd ee Oromo iyo Ethiopia Ethiopia isku jirtay. in odol laga qaado. Haye. waxa kamid ah Ha. nin aad loogu taameeyay ها oo uu xabsiga ka sii daayay oo ahaa nin siyaasi oo leader oo mucaarado Ha. oo Oromo ah ها albaabada ayaa loo furay oo la sii daayay ونسيداي qaybtan Soomaaliya waxay maraysaa Ha. iminkaaba 500 la sii gelinayaa
داريردي اه وهنا وصل الله ولا يا الله هي هذا ما بدنا ولا شيء طيب انا دمك عقل حمدا ها الصوماليدا مeel kasta jooga meel kasta ay joogaan ها ayay tilmaamaysaa هو اساسي aan waxay ballan ku qaadeen ها DDSI DDSI cid kasta oo ka hadasha arrimahooda ها ee u dhalatay DDSI ها jigjiga ها in laga bilaabo reerkooda halka lagu xiro warbalba aan la kaalay haye aan marka xaaladaasi halka ay maraysaa waan taabici doonaa wixii cusub inagu arbu kaltanka siyaasadda la xira hadii aan uu horumar keeno madaxweynaha DDSI cidna kala gaban mayno waa sax weey badan soo dhigayna hadii dulmi uu jiro sida aan ku baan sheegnay in dulmi weyn lagu hayo ummadda ayaa u sii wadayna ha wasaas marka madaxweynuhu sheekada uu leeyahay waxa weey oo imka ku tusaya Cabdi Maxamed Cumar ciidii buu hadlay wuxuu yiri gaar